Faransiiska ayaa guul muhiim ahayd gaadhay kadib markii ay si dirqi ah guusha kaga qaateen Australia kulankoodii furitaanka koobka adduunka, waxayna 2 gool kaga mahadcelinayaan Paul Pogba iyo Antonio Griezmann. Kulanka oo 2 rigooro la dhigay waxay keentay in labada dhinacba la siiyo fursado ay goolal ku dhaliyaan. France ayaana heshay 3 dhibcood oo muhiim ah, sidoo kale waxay hal tallaabo u qaadeen wareegga 16 ee tartanka. France ayaa hadda hoggaanka u qabatay gruubka C, waxaana la sugi doonaa kooxdii guul hesha labada xul ee Peru iyo Denmark oo caawa ciyaari doona. Xulka Faransiiska ayaa bilaabay dardar xooggan iyadoo weerarka ay si wada jir ah isugu jiibinayaan saddexleyda weerar ee Mbappé, Dembele iyo Griezmann, walow aysan wax halis sidaasi u weyn aysan gelinin goolka Australia. 10kii daqiiqo ugu horreysay qaranka Faransiiska waxa ay cadaadis xoog la saareen goolka Australia, 3 laad xor ayayna heleen, balse midkoodna kama aysan faa'iideysanin inay goolal u beddelaan. Ciyaartoyda France ayaa abuuray fursad aan caadi ahayn. Dembele ayaana kubad u gudbiyey Lucas, kaasoo kubaddii uu goolka la eegtay ay iska soo saareen daafaca Australia. Labada xul waxay soo bandhigeen ciyaar adag, walow ay Faransiisku mar walba ahaayeen kuwa gacanta sare leh, walow aysan qaybtii hore ku guuleysanin inay hal gool la shabaqa taabsiyaan. Qaybtii hore ciyaarta ayaa ku soo dhammaatay barbaro gool la'aan ah, labada xulna wax gool ah iskama aysan dhalinin. Qaybtii labaad ayaa la isu soo laabtay iyadoo labada xul ay la soo galeen dardar aan caadi ahayn. Faransiiska ayaana halkoodii ka sii waday inay cadaadis saarto goolka Australia, isku dayayay inay goolka helaan. Daqiiqadii 58 Antonio Griezmann ayaa dhammaystiray gool kulaad loo dhigay xulkiisa iyadoo lagu gaarsooray aaladda VAR, waana mid ka mid ah aaladaha lagu soo kordhiyey tartankan. Daqiiqadii 62 Mayl ayaa dhammaystiray gool kulaad kadib markii lagu abaalmariyey qarankiisa, waxayna ka dambeysay markii Umtiti uu gacanta ku taabtay kubad isagoo diilinta ganaxa ku jira. Daqiiqadii 80 Paul Pogba ayaa shabaqa soo taabsiiyey kubad ay si wada jir ah uga caawiyeen ulana fahmeen Mbappé iyo Giroud. Si qurux badan ayuuna shabaqa ugu riday, walow shaki gashay, balse aaladda goal line technology ayaa xaqiijisay inay dhaaftay xariiqda. Natiijadu waxay ku soo dhammaatay 2-1 ay guusha ku raacday qaranka Faransiiska, waxayna gaadheen guul muhiim ah iyagoo ugu cadcad inay ka soo baxaan booska koowaad ee Group C. Faransiiska ayaa guul muhiim ahayd gaadhay kadib markii ay si dirqi ah guusha kaga qaateen